qodobka labaad akhrinta wax badan ayaan ka soo hadalnay wax akhrinta qoraaga maqaalkan wuxuu leeyahay waxaan aqaanaa macallin jaamacadeed madow Maraykana kana soo jeedo qoys saboola waana qofkii ugu horreeyay ee ehelkooda jaamacad ka galo macallinkan jagooyin kala duwan oo muhiim ah ayuu jaamacadda ka qabtay ayuu leeyahay markaan weydiiyey guusha ugu weyn ee uu xaqiijiyay noloshiisa wuxuu igu jawaabay ayuu yidhi wax akhrintu iga soo kooba waxa ugu fiican ee aan sameeyey halkaasna i gaarsiiyey waa inaan wax akhrin jiray wax akhrinta ayuu ku soo koobay qodobka saddexaad wax uun xaqiiji qabashada hawl waxaan ula jeedaa dabiqitaanka wax aad baratay waa mid naftaada dareen guulgelinayo haddii aad netka ka barato tusaale ahaan cilmi mucayana isku day in aad dabaqdo in waxaas aad baratay aad u beddesho wax la taaban karo waxaa kaloo soo galaya qabashada wax uun in aad dabaqdo jadwal tusaalahan aad dejisay oo kale ama qorsho in caado xun aad iska joojiso in aad samaysato caado wanaagsan sida wax akhrinta habeenkii inaad xilli hore seexato subaxdii inaad xilli hore soo kacdo noloshaada inaad iska jiifka iyo nolosha caajiska aad ka baxdo in aad dhaqaaqdo cajalada aad dhaqaajiso taas ayaa ka mid ah wax uun inaad qabato qodobka afaraad xiriir guud la xiriir dadka gaar ahaan kuwa kaa agdhow adigoo ka bilaabay xayndaabka kugu hareeraysan sida qaraabada saaxiibada deriska dadka magaalada tusaale haddii aad nin khabiirah u tagto oo aad ka dalbata naseexa inuu ku siiyo ku aadan bilaabidda ganacsi wuxuu kugu jawaabi marka hore samaysa shabakad xiriir guuda dad kala duwan baro xiriir samayso waxaa kuu furmaaya albaabo fara badan ma ii sheegi kartaa qof dad badan kuwa muhiimad sarahaya iyo kuwa caadi xiriir la leh oo aanan waxyaabo badan xaqiijinin xiriirka wanaagsan ee xikmadda iyo caqliga ku dhisan waa furaha albaabo badan qodobka shanaad noloshaada wax ka beddel waqti dheer ayaad haysataa kadib markaad ka soo baxdo howlahaada rasmiga sida waxbarashada nidaamiga shaqada haddaba wakhtigaas ka faa'iidayso adigoo qabanaya wax uun xitaa haddaad tahay hooyo Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed oo guriga joogto fursadna aan u helin in ay wax barato aanan shaqaynin xitaa subaxdii oo kale 3 saaco subaxnimo 4 saaco subaxnimo ama 9 ama 10 subaxnimo subaxdii waxaad awooddaa markay dadka ama kala maqan yihiin ama iskoolada ciyaalka weli ayna ka imaanin in wax uun aad faa'iidaysato in aad quraan akhriso in aad wax kala barato in aad wax uun aad qabato aadan iska seexanin aadan sugin inaad qada kariso naftaada ayaa wax walba ka muhiimsan walaal ku dadaal wax isbaridda xitaa haddii aad 1 saac keliya arrinkaas samaynayso muddo sanad waxaad arkaysaa in wax weyn aad baratay wax weyn aad xaqiijisay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu aad u jeclaa acmaasha kuwa daa'imka ee aanan istaagaynin tusaale haddii aad 24 saac bog akhriso quraanka ka mid ah si xiriir oo aanan joogsalayna maalin walba waxay ka fiican tahay inaad maalin quraanka dhan dhamayso haddana aad joogto isbuuc maalin kale aad akhriso waxaan ula jeedaa 5 daqiiqo ba Allah ka dhigay haddii aad wax samayso maalintii waxaad arkaysaa muddo kadib wixii oo wax weyn noqday waxaa la dhahaa buurtaas intaas leeg waxay ka samaysan tahay xaani lagu daray ama dhagax yar oo dhagax yar lagu daray marka weligaa ha dhayalsan waxa aad qabanaysa si kastay u yaryihiin intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaaga maanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh